Sakariye iyo saaxiibadii waxa ay maalin walba tagaan goobaha ay bilicda u tirinayaan si ay isaga duubaan muuqaallo ama sawirro u galaan oo barahooda bulshada ugu baahiyaan. taas ayaa door ka ciyaaraysa isbeddelka ku yimid nashqadaynta goobaha lagu qaxweeyo ama laga cuno cunooyinka fudud. tiktokers baan nahay, tiktok aad u isticmaala anigu ka Sakariye ahaan ka Saki ahaan aniga iyo tiimkaygu waxa aan jeclahay in aan maanta meesha aan wax ku soo duubnay inaan meel kala tagno oo barnaamij qurux badan aan soo duubno. marka waxaan qiimeynaa xagee bilic leh oo hadda ay ka mid tahay meesha hadda aan joogno oo kale. waxaan u nimi anagu shaaciyo cuntada cuno ma iimaan inaan sawir tayada sawir commentiga iyo love iyo intuu bataan oo caan ka noqonaan u nimi. waa sawirku inuu noqdo mid caan ah xagee ku kulsa xagee la soo baafinayo meesha lagu soo maasha Allah. waxaa xilligan magaalooyinka Soomaaliya ku soo badanaya in meheradaha loo diyaarsho hab sawirrada lagu gali karo, gaar ahaan goobaha laga helo kafeega iyo cunnada fudud. meheradan oo ku taal magaalada Boosaaso waxaa maamulkeedu ka fakiray ka hor inta aanba meherada la diyaarin siday u ekaan doonto. ka hor intaan meherada furin waxaan ka fikirnay qaabka ay noqon doonto. baahida koobaad oo aan arki doono inay tahay inaan noo imaanayso dhalinyaro u baahan inay helaan goobo qurux badan oo sawirro ay ku galaan. sidaa daraaddeed waxaan naqsadaynay dhisayno kala duwan oo sawirrada lagu geli karo oo gudo iyo dibadba ah oo indoor iyo outdoor ah. inkastoo dadka qaar garowsan yihiin saamaynta barahani ku yeesheen nashqadaynta goobaha ganacsi, haddana waxaa jira in kale oo aan dareenkaasi gelin. Maxamed Xasan Dhalo, Boosaaso.